أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول الله عز وجل في محكم كتابه العزيز: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إن شاء الله أخوتي في الله ودرسيني أفراد وإن مدة عن كم مغنين وكسب سنة كتاب كقرآن كأه إلهي جل وعلا سدا وحفظي وحتبديل يا وح نقص انتبه ما أنت وح أنك هذلين وحويو kitaabka qur'aanka ah in uu xifdiyo allihii soo dejiyey ma ku filan yahay mise kuma filo. mawduuceenu maanta waa intaa iyada kitaabka qur'aanka allihii soo dejiyey ee malakul jibriil u soo dhiibay oo muallimkii rasuulullaahi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma ku filan yahay kitaabkiisa qur'aanka ah in uu xifdiyo mise kuma filo. muhiimadu waxa weeyo ilaahay wuu ku filan yahay jalla wa ala kitaabka qur'aanka in uu xifdiyo ilaahay wuu ku filan yahay. hadii ay ku soo aroortay kutubu sunnah ama kutubu shiica riwaayooyin ku wahmi gelinayo kitaabka qur'aanka ama ku moodsiin hayo inuu ku jiro wax taxriif iyo tabdiil iyo naqsi ama ziyaado inay ku jirto waxba kama jiraan way riwaayooyinka iyaga waayo si toos waxay u khilaafayaan kitaabkii qur'aanka ahaa iyo oraahdi ilaahay kalimadii ilaahay ayay si toos u khilaafayaan. dabeetana aha ku soo arooran sihaahu ahli sunnati wal jamaa ama riwaayooyin shiica xaqooda ka yimid oo daciif u badan aktharkoodu wada daciifa hay yimaadaan oo kutubtoodii ha ku yimaado ama kutubta sihaahi ahlu sunnati wal jamaa riwaayooyinku ha ku yimaadaan dhammaantood waxa weeye waxay khilaafsan yihiin kitaabka qur'aanka abay khilaafsan yihiin waxayna noqonayaan isugeyn ama isku duuduub oo waxaan waxba ka jirin bay noqonayaan oo la qaadan karin. waxa ku filan kafaalaqaadka ilaahi jalla wa ala kitaabkiisa qur'aanka uu kafaala qaaday in uu xifdinayo. إلهي جل وعلا قرآن كيس كريم كأبو كله هي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قرآن كان أما ذكر كان أنك أيا سود الجني أنك أيا هدنا إلى علينا سيدا درتد مفسرين تبركوا وحي يراهدين محفوظ كأو إلهي حفظي كتاب كقرآن waxay dhaheen sidoo kale ilaahay wuxuu xifdiyay oo uu ilaahay ku ilaaliyay kitaabka qur'aanka amar waliba alubayt almustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oo ummadda muslimiinta inta ay dhax joogan awlaadi rasuulullaahi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ummadda iyada dhamaanteed ma wada dhahayaan kitaabkii qur'aanka ahaa ee ilaahay uu noo keenay waxa weeye baadi. أدلة تائية كتسنا سنة وحويه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم حديث صحيحة ودرجة أغسر رئيس قاري عند علماء أهل السنة والجماعة وعند علماء الشيعة انتبه نبي صلى الله عليه وآله وسلم وحو إنو عديي وستو سأو إنو عديي إنو قتغى هي كتاب كقرآن كإلهي أسود جيي رسول الله محمد أكسود جيي iyo aalu bayt rasuulillahi al-a'zam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam labadoodana kitaabka qur'aanka iyo aalu baytka rasuulullaahi muhammad inaynan iskhilaafaynin marnaba inaynan iskhilaafaynin ila ay kaga soo arooraan xawdka rasuulullaahi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. waxaynu ogaanay kitaabkeena qur'aanka inuu ilaahay xifdiyay oo uu yiri inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahaafidun. حديث كي صحيح أهانا وحو سغي كتاب كي قرآن كأها إيا آل بيت كي لبضبا إنيسان كالتغينين حدي أن لبضو ذقب سنو أن كدقننا أدون كان إيا آخرة إنا الليبانينو
wax khilaaf ana uusan naga dhacaynin adduunyadana aanan ku baadiyoobaynin aakhirana innagii iyo kitaabkii qur'aanka ahaa oo wada soconno aan ku soo aroorayno xawdka rasuulullaahi muxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam sidaa darteed ikhwatii fillaah ilaahay jalla wacalaa kafaaladiisa uu kitaabka qur'aanka uu kafaalo qaaday waxyaabaha uu leeyahay ilaahay waan ka kafaalo qaaday waa dhowr qaybood midda koobaad waxa weeye in ziyaado la geliyo wax ziyaado ah in la geliyo midda labaadna waxa weeye in wax laga jaro midda labaadna waxa weeye in qur'aankii kariimka ahaa xuduudiisii iyo midda saddexaad kitaabkii qur'aanka xuduudiisii iyo faraa'ishiisii oo wada socoto in ay dadi ku ziyaadiyaan ra'yikooda ah ama aragtitooda inay ku ziyaadiyaan aragti laguma ziyaadin karo rasuulullaahi muxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam axaadiidtiisa aad aragtay oo dhan waxay fasiraysaa ama ay mutaabaqaynaysaa kitaabkeenna qur'aanka ah ee kariimka ah ayay dhammaantood wada fasirahayaan ilaahay jalla wacalaa qur'aankiisa kariimka ah wuxuu ku leeyahay qul yaa ayuha alladii nuzila calayhi waqaaluu yaa ayuha alladii waqaaluu yaa ayuha alladii nuzila calayhi adikru innaka lamajnuun waxay yidhaahdeen iyaga oo u jeedo gaaladii weeye iyo cid walba oo markaasi cadow ku aweeyay rasuulullaahi muxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam kani lagu soo dejiyey muxamed dushiisa ee dikriga ah wax kale ma ahay yidhaahdeen ilaa waxaa lagu soo dejiyey bay dhaheen dikrigan iyagi iyo waxani axad isagaba waalan oo aan waxba kala garanaynin oo maskaxdiisa aysan joogin bay yidhaahdeen haddaba odhaahdaa iyada ahee rasuulullaahi muxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam ay gaaladu ku yidhaahdeen ama gaaladu ay la soo qaabileen haddii uu axad muslim sheegan hayo oo muwaxid oo ilaahay baan waxiday yidhi rasuulullaahi muxamedna waan rumeeyey yidhi haddii uu nebiga la qaabila ka warrama sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo uu yidhaahdo nebigan isaga ah wuu hantaatacahayaa waxaa annagu nagu filan kitaabka qur'aanka ah ee kariimka ah keliya ayaa nagu filan wax aan ooga baahannahay rasuulullaahi muxamed ma jirto sala allahu calayhi waaalihi wasalam hadduu yidhaahda ka warrama waxaa weeye way dhacday nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam isagoon adduunyada ka tegin geeridiisa sida aan ognahay 3 maalin ka hor raggii ugu waaweynaa ee saxaabada rasuulullaahi muxamed ahaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam ayaa arrinkaa iyaga la qaabilay ilaahayna jalla wacalaa qur'aankiisa kariimka ah wuxuu ku leeyahay haddii lagu beeniyo sayidka muxamedahow hortaa waxaa la beeniyey ambiyo iyo rusul ayaa hortaa la beeniyey arrinkaa iyadaa wax adiga keliya kugu horeeyo oo maanta adiga kuu yimid ma aha ilaahayna jalla wacalaa qur'aankiisa wuxuu inoogu caddeeyey ina aladiina kafaruu bidikri ilaahay wuxuu leeyahay wixii beeniyey ilaahay ku kufriyey jalla wacalaa ee kitaabkiisa qur'aanka ah ku kufriyey wax kale ma aha buu leeyahay lamaa jaa'ahum markuu kitaabka u yimid qur'aanka kariimka ah kuwa beeniyey de waxaa weeyaan ma aha arrintu ilaan xujaj baa lagu oogay baraahin baa lagu oogay arrinkaa iyaga abay marka beeniyeen ilaahay waxaan ognahay kitaabkiisa qur'aanka inuu yahay kitaab uu ilaahay isagu ilaaliyey oo isagu uu xifdiyey sidaa darteedna uusan ooga imaanaynin ilaan kitaabku waxa ay iyagu gaaladu la yimaadeen oo abaatiil ahaa ayuu burburiyey gaaladu waxa ay la yimaadeen oo abaatiil ahaa oo been ahayd oo kitaabka qur'aanka ah ay markaasi ku tacaarudahayeen oo ay kaga hor iman hayeen oo ay doonahayeen inay kitaabka qur'aanka ah ku foolxumeeyaan ayuu kitaabkii qur'aanka ahaa burburiyey ambiyada ilaahayna mar waliba waxa weeyo dadka ay la doodi jireen waxay ahaayeen dadkii kutubta hore haystay dadkii nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam iyo ambiyada kaleba waxay la doodahayeen dadka iyaga ka hor yimaado ee iyaga fikirku ambiyada ilaahay ka hor yimaado ee kitaabka markaasi loo soo dhiibay diidan ee wax kaloo iyagu jeebkooda ka jabsadeen ama iyagu ay caado oo iyagu ay samaysteen doonahayo in ay iyagu isku maamulaan oo iyagu ay ku dhaqmaan kitaabka markaa ilaahay uu u keenayna tacaarudahayo oo ka hor imaanhayo nabigeennana sala allahu calayhi waaalihi wasalam ambiyada ilaahay ee hore
wadadii lagula dagaalami jiray iyo aflagaadadii la aflagaadayn jiray iyo suuro xumayntii ambiyada la suuro xumayn jiray ayaa nabigeennana lala qaabilay sallallahu alayhi wa alihi wasallam. waxaanu ognahay marka dikrigan isaga ah inuu yahay kitaab ilaahay xaggiisa ka ahaaday oo hatana casiiz oo qaali ah. kitaabka isaga ah oo uusan baatilku kaga imanaynin, horay uusan kaga imanaynin, gadaalna uusan kaga imanaynin jal ilaahay kitaabkiisa jalla wa ala. wuxuu ka ahaaday kitaabkeena quraanka ilaahay xaggiisa ayuu ka ahaaday, waxana weeye kitaabka quraanka waa kitaab xakiim ah oo xamiid ah. ilaahay jalla wa ala sida ayuu inoogu cadeeyay. ninka loo yaqaano ibn Jarir at-Tabari oo min culamaa ahli sunnati wal jamaa raggoodii ugu horeeyay ee salafka ahaa arintaasi wuxuu uga hadlay si aad iyo aad u faahfaahsan, laakiin isaga sida uu uga hadlay si ka sii xeel dheer waxa uga hadlay shaykhu taa'ifati culamaa ash-shi'a ninka loo yaqaano waxa weeyaan Abu Ja'far at-Tusi oo isaguna waxa weeyaan ninkan isaga alla magaca oo magacoodu ay aad iyo aad isugu dhow yihiin ayaa isaguna wuxuu uga hadlay markii uu sharxayay آيات فصلت سورة فصلت إلهي جل وعلا وكير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وحلاه إمامك إسقاء الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيال لويديي آيات دا إيضا تفسير كذا. إمامك وحو يري آيات وحي عضينا يسابو يري كو مركوه الرئيسو أي سوى يسا geeridii rasuulullaahi Muhammad inay soo dhawaatay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oo adduunyada uu ka tagahayo. macnaha aayaduna waxa weeyaan buu leeyahay hadii rasuulullaahi Muhammad oo adduunyada adigu aad ka tagto ama lagu dilo diintani mar waliba ilaahay wuxuu u dhiibay awsiyo xifdinayso oo waxa weeye ilaahay xifdigooda qulubtooda uu ku xifdinayo oo ummadii ay markaa dhex joogaan xujaj iyo baraahin ku oogahayo. haddii ay macnaha la yimaadaan yuhuudu arin iyo waqtigii khulafadii hore sida Abu Bakar iyo Umar oo kale yay u noqon jireen oo yaa marjicu ahaa waxa marjicu ahaa oo u noqon jireen amiirul mu'miniin al-imam Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salaamuhu alayhi. imaamku marka isaga wuxuu sameyn jiray waxa loo yaqaan tabyiin aayaadka quraanka ahaa ee iyaga ku istaago, ahkaamti iyaga ku istaago, xujajka iyo baraahinta iyaga intii lagu soo oogay ay dhaqaajin waayeen in uu burburiyo isaga on meel kale u aadaynin imaamku ee kitaabka quraanka ee ilaahay uu ku manaystay fahmigiisa uu ilaahay ku manaystay ummadda u sharxahayo oo u cadaynayo. al-imam Ja'far as-Sadiq salawatullahi wa salaamuhu alayhi arrinka isaga sida iyada u cadeeyay oo ummadii nooca ugu cadeeyay. waxaan ognahay ilaahay quraankiisa kariimka inuu ku leeyahay watlu ma uuhiya ilayka min kitaabi rabbika la mubaddila likalimaatihi ولن تجد من دونه ملتحدا. إلهي سيدو كله وحو إنو وعدي واتل ما أوحي إليك إنو لهي سيدك محمد هو أقري وحأذيق اللغو وحيون هيو ومن كتاب ربك ربك كتاب كيساء ربك كتاب كيساء وحكون لحسوغان كتاب كان قرآن كا آيات كيساء وحكون لحسوغان وح الله لوحي إنك نولشينا adduunyadan aan joogno aynu ku gaari lahayn hormar ayaa waxa ku dhaxsugan kitaabka quraanka. kitaabka quraanka ilaahay wuxuu leeyahay jalla wa ala cid walba hadii ay isku tagto kalimooyinkiisa in ay bedelaan awood uma ay laha gabi ahaanba. hadaba haday cid ku tiraahdo waxa weeyo sunni ayaa wuxuu qabaa kitaabka quraanka inuu taxriif ku jiro oo waxaan ka helay kutubtoodii ugu waaweynaa sida Bukhari baan ka helay, Muslim baan ka helay, إمام أحمد بن حنبل كتاب كيس مسند كان كهلي، سنن أبو داود بان كهلي، سنن الترمذي بان كهلي، إمام الكليني أو وحويان أمد الإسلام كأنت يضبط أن يتقى محمد بن يعقوب الكليني ثقة الإسلام أي وحن كهلي أو نشيع وويناءها أي وحن كهلي كتاب كيسة الكافية إن روايوين كتسنها هي كتاب كقرآن كأما كوهم جلين يو إن يكسو جيهين تحريف وحاصل أن نجلقها أسين وحكاغفل كلي أعذبه كتاب كان قرآن كائنات إستجا جدال أو نقطه أو مركا إيدا آد أوجاتو كتاب كني إنه سنجلين حبيراته وح تحريفه يوح تبديله يوح نقصه سيدي إنوسو عديي قرآن كريم كوينو عديي مفسر كيسي أو الإمام جعفر الصادق يا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه
iyaguna ay inoo cadeeyeen oo inoogu fasireen ilaahay wuxuu leeyahay markuu ka hadlayay bal huwa aayatun bayinat kitaabkani quraanka waxa weeyo wama kunta tatlu min qablihi min kitab ila rasuulullaahi muhammad waxaan ognahay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kitaabkeena quraanka horti inuusan waxba qoriyeen waxna uusan aqrinaynin laakiin kitaabkii quraanka ahaa markii loo keenay inuu waxna aqriyi jiray waxna qori jiray laakiin arinka iyada naguma waafaqsano walaalladana ahlu sunnati wal jamaa oo waxay leeyihiin rasuulku ummi buu ahaa la yaqra wala yaktub macnaha sida ukunta oo kale ilaa qofku markii la fiiriyo oo la yiraahdo la yaqra wala yaktub wa ukun oo kale wax daboolan weeyo oon hadlaynin dadka waxba u gudbinaynin waxna aan aqrinaynin waxna aan sheegaynin nabigeenu laakiin saa ma ahayn sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ilaahay wuxuu inoogu cadeeyay kitaabkiisa quraanka wama kunta tatlu min qablihi kitaabkan quraanka horti waxba ma aadan aqriyi jirin waxna ma aadan qoriynin gacantaada kuma aadan qoriynin laakiin kitaabkii quraanka markuu yimid waxaad bilowday inaadna aqriso qortana oo quraanka baaba cadeynay sanuqri'uka fala tansabu ilaahi leh quraankan kariimka annaga ayaa ku aqrisiinayno mana hilmaamaysi اقرا با ليري نبيغا صلى الله عليه واله وسلم اقرب با ليري نبيغا وونا اقريي او وحو يري اقرا باسم ربك سداسو نبيغا نو اقريي صلى الله عليه واله وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به الهي وحو له عربكاغا هدا دقاجنين inaad aqriso quraanka kariimka waxyigu markuu u dagahayo uu socdo oo boobsiiso oo xifdiso waxba ha isku kalifin inna alayna jam'ahu wa qur'anahu annaga dushayada waxa ahaaday buu ilaahay jalla wa ala inaan quraanka kariimka aan kulmino oo ku xifdisiina adiga annaguna aan xifdino ayaa annaga dushayada ahaaday halka iyada waxa ku burburtay abaatiishi iyo aqaawiishi fi kutub ahli sunnati wal jamaa ama culimadooda inta badan ay soo raraan ee markii ay hadlayaan ay dhahan annabiy al-ummi waxa weeyo nabiga ummiga lagu sheegahayo magaalada loo yaqaan Makka ayaa waxay tahay ummul madaa'in weeyaan ummul qura way ummul qura quraanka baa loogu cadeeyay magaalooyinka caalamkana waxa weeyo waa magaalada hooyada u aweeyo maadaama oo beedka ilaahay uu ku yaalo iyada ayaa waxay tahay marjici loo noqon hayay ee waxa weeyo anbiyada ilaahayna intooda badan sida nabiyullaahi ibraahim oo ilaahay uu leeyahay an ittabi' millata ibraahima meeshii ay dhamaantood maqaamka ay ka sameeyeen ee ummaddu waxa weeye ay u noqonaysay waa meesha iyada sida darteed waxa loo jeedo waa magaalada iyada ee Makka ma aha rasuulullaahi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oo hadii taa nabigeena loo nisbeeyo wuxuu noqon hayaa qof aan waxba gudan karin dacwadii ilaahay u soo diray iyo tabliiqi iyo dacwadii qof aan sidii uu ilaahay ugu talagalay aan u gudanaynin ayaa inoo soo baxayo sida darteed buu ilaahay wuxuu ina leeyahay wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika idhan lartabal mubtilun bu ilaahay leh wa ay marka kuwan leeyahay idhan lartabal mubtilun okay idan waxa weeyo inaga lama raba inaan kuwa iyaga aan noqono ee waxa weeyo inaynu noqono kitaabkii quraanka ahaa kuwa ku qaatay waxa weeyo sam'an wa ta'an intay yiraahdeen qaatay ilaahi jalla wa ala quraankiisa kariimka wuxuu ku leeyahay ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين أيضا يضع الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيا وحو التبييني سئا عادي أهين ووحو كتابك قرآن كأها هذين هذا كنا قلنا ما وح أقاويل يا أكاذيب يا اختلاف أبا كتابك إن القرآن كان لجهل ما يا وحل لجهل هي أكاذيبته يا أقاويش يا اختلاف كوحويه وغير القرآن قرآن كوح عن هين ويه سيدا درت هذا وحل لو أقون سنكر حديث كصحة إيه رسول الله محمد إن وافقوا كتاب كقرآن كأ يا لو جرن كرا إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم روايين كآل بيت ك شكلنا الشيعة على القرآن وحافظ أمسين تحقيق شيخنا دل لجهل ما هيو في كتب علماء الشيعة لجنا هلي ما هيو إمام فطوضي أرنك إسوا اللي يقانو من أئمة أهل البيت
iyo riwaayo asaxday midna waxa weeyo dadka kale muslimiinta la quraan dadka kale bay la quraan yihiin kitaabka quraanka maanta lagu soo daabaco Dhahraan iyo Ciraaq iyo Lubnaan iyo midkan Sacuudi Carabiya iyo lagu daabaco Dubai waa isku mid wax farqi u dhaxeeya ma jiro hal aayad bay ka wada bilowdaan hal aayadna way ku wada dhamaadaan hal bog bay ka wada bilowdaan عشركنا ما أنت أيضا أيام كسو جبجبيننا وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين